siiyo ayuu carabka la geli jiray nashde 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 alla markaasaan taha carabka ku walaaq nagde 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 carabka gelgeli nagde 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 nag marka islaantani iyadu waxay maraysaa fi konton waa konton jir ama konton iyo shan weeyaan marka waxa yar bayadu biliq 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 naa waxaan maahe bahal adagoo saa lagula dhaco marka anigu imika maxaa ku jecela ismaaciil intuu ii jaqo oo hilbi siiyo oo cunto i siiyo oo marka hore ii jaqo oo jirka iga jaqo oo afka iga jaqo oo naasa iga jaqo oo siilka iga jaqo ayuu marka dambe sarabada dhex dhigaa dhag 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 brud 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 naanaga waxaad raaca ka taqaana marka baasha tana lagu dhagaa inta siilka lagu jaqo inka tana lagu dhagaa farmasigay taallaa waa laga soo iibsadaa marka raaxayso kawdhe aniga ninkaasi wuxuu igu dilay wasma xumo wuxuu igu dilay wasma la'aan wuxuu igu dilay gaajo wuxuu igu dilay guri xumo wuxuu gacanta nacaabu sheeg laakiin ay dirisow ay dhalay baad caawa ku sheegaya ay dhalay baad ahayd ducuf baad ahayd wasma maadaqoon xaaraami baad ahayd dhillay baad ahayd maad kacsan jirin hal mar ka badan weligaa imaad wasin waryaa habarta xuno halka mar ku qanacsan oo biyaha yarad ku shishubto carruurta deegaayada biyaha marka siilkayga saa u waashee biyaha yar bay igu gororay laakiin weligaa si fiican imaad wasin dhag 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 maadaa kacsadaba waryaa waa kaa raysta waryaa qoorahaguma kaco intaasuu leegyahay waa biriq 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 faqal biriq إنا لله وإنا إليه راجعون أصحابي حسبي الله ونعم وكيل وإيشان وريرسن إلى الدعوة أصحابي لقيست وحيكو هادليسو إسلانتان أييده مانتا مركا وعصابتين قوم اللوط وأييلدي يدن سيدان وكالي أفسهادين ويبدنيهن قار رسولك عليه الصلاة والسلام عاية قار إيد اسكو فلاديسو shilimaadkii aan ka galay waayelada awal gaalada waa tixgelin jireen laakiin baryahan dambe waxaa la idinku isku falaado shaqeystaa leeyahay hawra walba soo cunug kala nooc inay meesha la soo fariisato aniga biil igu sugin shaqeystaa leeyahay shaqadii marka waxay isdhahayaan ileen Soomaalida in hadii la caaytamo dadka share iyo like waa siinayaan laakiin hadii la wacdiyo share iyo like laga mahelo qaar ka mid insha Allah Soomaalida badankeed macna dad nadiif ah ku jiro laakiin qowmuluudan hadda waxay sheegaysaa idinka aad makhluusiin ana liigu sameeyo ku dhahay sawir saasaan ku jeclay saasoo igu sameeyaa inta ku jirta Facebook oo like siinaysa dad aragtid xasbi Allah nimca wakiil ninka maanta quraanka akhrinaad halaas ma helay daqiiqadii ee helinaagtan kun oo suul oo like sababta maxaa keenay qowmuluudka inuu soo bato saasa ku ogaanay tan oo kale meesha ka wacdis ama ay ka caaytamayso ama waxaas egshees meesha laga dhaqaaqi lahaa laga tagi lahaa iyaga buu horseeda inay maalmo bacaay cusub soo geliso iyaga gaarsiis Soomaali inay rasuulka caayaan sababtoo iyaga u gurbaantumaayo marka waxay isleedahay maadaama dadkii ay like iyo share ku siinooyin maxaa u joojinay camal adigana hore u sii soco ilaa iyada shilimaad meesha ka galay wixii markaas oo dad oo fiirsado intaasoo bilyan intaasoo boqolaal intaasoo kumaankum wixii heshaa loo xisaaba alsiina marka way ku qasbantahay inaa maalin walba jabi cusub ay soo geliso oo iyada isku falaado marna ilmahooda ay keenaan marna macnaa wajigi wax ku helayaan marna ay rasuulku u dhigtaan sallallahu alayhi wasallam halaaga adduunyada ku bilaawdo maamooyinka aad ay u dhiban yihiin حسبي الله ونعم وكيل داوشو عن أصحابي وأركتين هبرتان وحي شيغيسو حسبي الله ونعم وكيل مركان داها أنا قروي هاي ستا سومالي إيغا أسباب إنا قبيلك وركع ستا قبيل كذي الله تيشيرت سينايان مركاسي وحفي عن اسكو مدائني وحفي عن شيكتي اسكو مليسا مركاسي كسي داري مالin maalinka dambeeysa wax ka sii xun ay soo sheegay
حتى رك دبل قدار كصريح إسلام تانسان عوادس وأوجدا نينا بنانك سوستاغ كركو سوستاغاي ومعنا تصاي dadka eebtiisa gacan ku soo qabsanayo subxaan allah waxyaalaha la sameynayo wax afrika bax aqaan hooyooyinka meesha laga gaari masiibo soomaali masiibo ay ku mar dhaqatay aakhir zamankii waa sheert ilaagta meel xunaa laga raadinoyaa ilaahay sad ma noogu daro wixii waxaas lagu heli lahaa ilaahay maba nasiiyaba eka maqnaata ku dhaanta laakiin dadkan waxa dad duloobe oo waxay rabaan iska sheegaya waaye macna dad u jiheysto waaye inay macna qoomuluudka ay ku biiraan nin inaaga ay ku socdaan wiilal yaraa islaamahan dabada ka soo riixayo oo ku qalqaalinaya inay saas u hadasho oo u quslaayo oo laagta daba taagan oo u sacbinayo si ay hore u sii lunto marka ma jiree wax lagu bedeli karo male bes waaye wixii tagay waa marna wax Soomaali waxay noqotay marna diinta ka baxayaan marna oo soo noqonayaan laakiin waxaas wax jira maahan qofka muslimka ah haduu mar diinta ka baxo waa ka baxay oo ku soo noqon karaa macna lama dhihi karo sababtoo ah qofka markuu gaal yahay haduu diinta ka baxo wadana uu ku soo noqon karaa sababtoo ninkan waxa la rabaa ilaah wax u fidiyo in macna si uu ku soo rajuuc uu ku soo galo laakiin adigii muslimka ahayd markaa rabtid inaad wax walba sheegtid oo haddana aad rabtid inaad kusoo noqoto aad kasii baxid aad kusoo noqoto oo rasuulka cays oo wax walba aad samayso oo diintiin booskaadii ay taagan tahay oo markaad waayeel noqoto wareerto kadibna aad tiraahdo allah cafi istaagfirla wax dhici karo ma ahan waxaad samaynayso adigoo just ah samaynaysaa marka diinta ciyaarta ka dhaafa marka maamooyinka duleesan ilaahay soo hanuuniyaan leenahay hanuuna ma jira ilmihii ida dhashan sideedoo kale ka dhigoosa wax ay dhaafooyin malaha laakiin hidaaya min allah ilaahan ka sugeena hawartaan bero atoobinay laakiin wax jira ma aha waxaas marka insha allah waxaan leenahay qoom luudka allah naga yareeyo Soomaal boqolkiiba 50 in la masiixiyay ku talgaleen waana noqdeen hadda ilaa 30 maroos awil 20 dhiman rajaan leenahay boqolkiiba 30 masiixiyo noqotay marka ilaahan leenahay insha allah asxaabteeda qof walba ra'iis soo hadla u duceeyo abrahan saan noqdeen haloo duceeyo ducaani laga rabaa insha allah haloo soo duceeyo islaamahan waa yeelka ee awootooyinka oo maanta saan yeelay oo jaqjaq iyo adduun iyo waxaan loo baahneen saacadan ay ka sheekeynayso xilligii toobada iyo tawxiidka ee tusbaxa qaadan lahayd naagta ku jirto oo maanta waxa sheegaysa ninka gadaasheeda taagan oo wax ka daba qaadanayo ninka garka leh sheekh iska dhigay kadibna oo macna alaabtiisa asagana macna u soo koobi gareena oo soo sheegay marka ma naqaan dadkaas waxaan ku tilmaano asxaabteeda qiimaha ay qaaya badan asxaabe Soomaaliyeed meel ba caalamka joogtiin waxaan jeclahay inaad hooyooyinka awootooyinka aad soo duceysiin insha allah soo duceediin waa laga maarmaan dadkan aan fiyooween aan jinn qabin oo fiyooween oo waalneen oo juste oo marba nooc saan iska dhigay oo lagu qosli like share ku heli umada baabi qoomka yaryaraay macnaha ku fiirsadaan dad dhumi isdheeyso insha allah hoostooda allah ka siiyo xilli ay ku toobisay ku jirtaa xilli ay ku toobisay allah siiyo intaas aan leenahay anaga insha allah asxaabteeda qiimaha ay qaayah badan subscribe iyo share waa dhinaciina oo kaase waxa la sheeg ma jireen ilaahay aan soo hanuuni insha allah sheego waa la daaliye ilaahay umada soo toosiyo insha allah bismillaah alkariim ilaahay aan soo hanuuni asxaabe maamooyinka allah soo hanuuni waliba dhalinyaradii maa loo murgaa hooyooyinkii oo marada dhigtay maa loo murgaa naagii normaalka oo caadiga ahaayeen oo hooyooyinka iyo tan awootooyin waay hooyooyinkan kuwii shal aan soo dhigayo oo iscaynayo iyo nin oo riwaayad dhigayo isku diriyo dhexdooda ay ka tafat tanna hooyo awooto waay tan marka yaa loo duceynaya la dhaafaa waay Soomaali dhan baa loo duceeyo marka ilaahay joogo ilaahay macnaha soo hideey insha allah Soomaali dhan baa dhiban yihiin الله سوانوني أصحابي خيمة إخايا مدن سو دواد جنرال كي عنك فرحي إبراهيم
welcome to farxii ibrahim asaaweysa subscribe shared waa dhiciina commentigan ha ahaada mid loo wada duceeyo ummadan halaaganta ee adduunka korkooda lagu imtixaan iyagaa isku imtixaan malahe iyagaa is imtixaanee waxaa loo soo duceeyo insha allah khayran isku ognahay asalaamu calaykum